haddii aad ka cabanayso inuu wejigaada mar walbaba uu ku guduuto, xuub uu kaa fiiqmaayo kalo, wejigaada mar walba inuu qallalan yahay, wax kastoo aa mariso wejiga uu qax ku yahay oo qallayl ku yahay, in aad wax ku qariso ama make-up aa mariso oo kale maahane xuubka wejigaada oo soo muuqanayo oo lagaa arki karaayo ama horey lagaa dareemi karaayo aad tahay sida muuqaalkan hadda kaaga muuqdo kale. Muuqaalka halka kaaga muuqda midna wuu gaduudan yahay oo keliya, midna gaduudkii iyo qolofkii ayaa isugu darsan oo labadii ayuu isku wataa. Haddii aa intaasba aad tahay wejigaada ama gaduud leeyahay ama qolof xuub wejiga ka kacayo, cambaar, waxyaabahaas oo dhan ay wejiga ay kaa wareeriyeen, waxaan ku wadaa muuqaal qurux badan, faa'iido fara badan xambaarsan. Igala faa'iideyso, walaalahaada kalena usii like garee, usii share garee si ay ayagana muuqaalkan uga faa'iideystaan. Waa muuqaal aan inaba caadi ahayn, wax badanna aad ka fahmi doonto. Make-up inaa wejigaada ku qarisid iyo indho shareer iyo dhuudhuumashaal, yaa maanta kuugu dambeynaysa ka faa'iideysan kul. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah, meel walbood iga daawanaysaana nabad iyo caafimaad ku daawado. Waa walaashin Xushmo oo idin leh isku soo noqod wanaagsan, fiideo cusub, aragti cusub, muuqaal cusub. Soo dhawaada meel walbood iga daawanaysaan, waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada janalkayga Xushmo, niyad furan iyo qalbi saafiya. Soo dhawaada Xushmo, maanta waxay idin wadaa muuqaal kale, muuqaal aad u qiimo badan. Idinkana waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka ila daawo doontaan oo aad ila dhammaysan doontaan. Walaalahayga qaaliga waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka sii like gareysaan, sii share gareysaan si asxaab kale walaalo kale oo fara badan oo muuqaalka u sii gaaro. Yacni haddii adiga waxaa ka faa'iidad muuqaalkan, sii like garey oo sii share garey si adiga waxa aad ka cabanaysid walaal kale oo ka cabanayo oo asigana uga faa'iideysto. Ha noqon kaligii faa'iideyste, noqo kan dadka dhan u faa'iideeyo. Maasha Allah, maanta waxaan idin wadaa laba boomaato oo maasha Allah aad waxtar badan u leh. Marka aan arkay yacni cabasho fara badan gabdhihii haysato taasoo ah guduud wejigii faceka ka halaabay, markastana ay ka cabanayaan maxaa gaduudkayga baabi'i karo, maxaa yacni wejiga xuubiga fiiqmaa, wejiga cambaariga gashay, yacni wejiga sidaan cabashadoodii ay sidaas noqotay. Marka waxaan idin wadaa laba boomaato maasha Allah daawo boomaatooyinkan horta aa ujeedaan waxaa la yiraahdaa different gel ayaa la yiraahdaa. Waa boomaato dabiici ah, ma ahan wax whitening lama ahan, wax maqaarkaada cadeynaya ama wax difeeto u geysanaya ma ahan. Waa daawo oo keliya oo daawo ahaan ayaad u isticmaalaysaa, whitening ma lahan, ma ku cadaanaysid. Haddii adiga cadaan aa rabto cadaan u isticmaali lahayd, yani cadaan kuuma noqonayso, laakiin waxay kuu daaweynaysaa skinka dhintay, yani maqaarkan qolofka leh, gaduudka leh, haarta leh, waxaasoo dhan ayay kaa nadiifinaysaa. Haddii aad allergy leedahay, yani aad xasaasiye qabto, waxyaabaha qaar markii aad marsato aad ku xasaasiyoonaysid oo aad xasaasiye dareemaysid, wejiga cuncun fara badan aad ka dareemaysid, wejiga aad ka kululaanaysid, kuleel aad ka dareemaysid, waxyaabahaasoo dhan ayay kaa xalinaysaa. Skinkaadana skin qurux badan, skin caafimaad qabo ayayna kaaga dhigaysaa insha Allah. Waxaa la yiraahdaa different gel, different creamna way leedahay. Boomaatadan kale ayadana waxaa la yiraahdaa Dibrisol ayaa la yiraahdaa. Waa boomaato macruuf ah, waa la wada yaqaanaa sooma. Marka waxaan idin leeyahay waa labada boomaatooyinka idin wado. Labadan boomaato isla isticmaal oo waxyaabaha kale aad marsatay, yani wejigaada inay difeeto kuu geeyeen aad is leedahay jooji, meel dhigo, yani daawo kale laguma daro. Marka waxaa la rabaa midaan ina wejigaada xal u helid aa u hesho xal, yani inuu kuu daawoobo oo quruxdaadii iyo skinkaadii kaa dhintay oo kuu soo noolaado. Yani haddii adigoo daawadiin isticmaala daawo kaloo whitening lana aa kusii dartid, meel lagaa soo gaaro iyo meel lagaa waafaqa ma garanaysid.
wax walbo aa samaysana waxba kuuma tarayaan. Horta bal soo daawee wejigaada oo marka aad daaweysid oo aad dareentid in ay waxyaabihii dhibaatooyinkii ay ka xalismeen, bal markaas wixii wejigaada anfici kara ama aa u isticmaali karto raadso. Laakiin haddaa tira wixii dhan aan isku wadaya eber waaye. Marka labadan boomaato waa laba boomaato oo maasha Allah skinkaadana wax badan ka bedeli doono. Waadna helaysaa qaybta meelaha farmasiyyaasha ayaana laga helaa oo ma ka helaysid meelaha whitenka. Dibrisoosh inaad ka heshid waa laga yaabaa, laakiin boomaatadan differentka farmasi bas lee ka raadi kartaa. Meelahan cosmeticska waxyaabaha oo whitenka lagu gado lagama helayo. Saasaan aniga rajaynaa. Kolleyba farmasi lee waaye, waana daawo. Boomaatadan waxay kale xitaa u fiican tahay haddii ilmaha cafaayadda ay ku gubtaan oo kale ama ilmaha ay hamburaan oo kale, meelaha laablaabatada ama ilmaha markay yacni hilibka leeyihiin, dhaylada leeyihiin, way caawisaa, way u fiican tahay. Waa daawo. Waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen muuqaal.